yaha hawlihii shaqo qayb kamida ku gudateen ama lagu qabtay caasimadda dawladda Galmudug ee Dhuusamareeb imaanshihiina sidaad hawshiina halkaan ugu qabsateen aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh waxaan ka cod daaranaynaa wixii aan daldalool ah ma jiri kara raaligelin baan ka bixinaynaa waxaan halkaan uga mahadcelinayaa guud ahaan dowladda iyo shacabka Galmudug gaar ahaan shacab weynaha caasimadda soo dhaweyntii ay soo dhaweeyeen madaxdooda oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dadaalkiina wayn kaga mahadcelinayaa waxaan dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba isku bogaadinaynaa dagaalka lagula jiro cadowga khawaarijta anagoo runtii ammaan iyo bogaadinba u jeedinayna madaxweynaha jamhuuriyadda oo hogaaminaya halgankaas iyo hawshaas lagu sifaynayo khawaarijta si gaar haddaan reer Galmudug madaxweyne adigoo guud ahaan dalka in laga sifeeyo khawaarijta u istaagay inaad saldhiggii dhiirigelinta iyo hogaaminta marka koowaad ka soo dhigatay Galmudug waa kaaga mahadcelinaynaa dhammaan dadka reer Galmudug dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan isteedyadan waa u mahadcelinaynaa oo madaxdii hogaaminaysay saaxiibada halkaan waa fadhiyaan siday ugu jiraan dagaalka iyo halganka oo qaybtooda iyo hawshooda dhinacooda uga hayaan cadowgani meel gaar ah dagaalkiisu kama socday dhammaan dalku ka socdaa marba meeshii lagu horeynayo ama mudnaanta la siinayo waa uun si kala hormarin mooyaane dagaalka waa lagu wada jiraa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leenahay walaalayaal sidii horeba madaxweynuhu baaqiisii ama uu u soo gudbiyey ama uu ku hogaaminayay waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadowgaas khawaarijta gaar ahaan reer Galmudug waxaan leenahay maantay Galmudug ay ka xoogan tahay Galmudug ay ka socotaa inta yaroo dhiman aan dhammaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno runtii waxaan rabaa halkaan inaan ka bogaadiyo iyagana ciidamadeenna qaranka ciidanka stateka dadweynaha is abaabulay dhammaan inaan idhaahdo jisadiina janno allah ka dhigo waxa aad ka geysateenna meeshii ugu mudneed oo dadaala oo la geli lahaa baan gelinaye guushu waa noo dhowdahay ilaahay idankii maalmaha yar oo ay rafanayaan oo ay marba meel ku boodayaan waa sidii lagu yaqaanay waa nafkabaxoodii waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno madax noo dhimani ma jirto madaxweynihii jamhuuriyadda nagu hogaaminaya fadhigan iyo kulankan iyo shirkan ilaahay idankii inta khawaarijta aan ka sifaynayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo nagu dambaysaan rabnaa oo dhammaantay aan isugu tagna safafka hore iyo jiidda waan isugu tegaynaa insha allahu tacaala ilaahay idankii kuwaasi waa gebangabo siday sugaanta ugu cabireen abwaanadii Soomaaliyeed bay maanta marayaan waxay been ku soo gabadaan iyo waxay maalinba gabaad meel ka dhigtaan iyo waxay marba meel ka siibtaan maanta insha allahu tacaala rafashadooduna na dhibi mayso dareen kalena na gelin mayso oo aan dhiiranaan ahayn waxa kaliya oo na qanci karaana waa inay ka dhammaadaan dalka guud ahaan oo ilaahay idankii aan reerto fiican ku qabno mar kale madaxweyne
وكاغا مهد علينا قوان كاغا وكاغا مهد علينا دلال كاغا وكاغا مهد علينا سيدا قول استاكتي وهذا رنتاس كاغا قوان تهي وما أنت أي تهي سومالي باهدا أي قبط مدة أقوين وأن لهين باهي كال أو لاقدقو إن الغفو تشيو عدو قاس خوارجتا ودماء وحان رباه إن نمهد علي مركلة ماذا حدا شرفت لك قراها واتشي غرنكا وهقامين يا مشرق الدومين يا مدحونا جمهورية دا إمانشيهينا شوقستينا إيوه سيدا هوليه dalka guud ahaan ka socday ama ka jiray kuwa ugu muhiimsanaa laga wada hadlay shirka iyo sida runtii midnimada wada jirka iyo gacmo isqabsiga leh oo loo shaqeynayo aad iyo aad baan kugu amaanaynaa annaga reer galmudugna imaanshihiina markasta wuxuu noo yahay farxad iyo walaalnimo iyo inaan ku faraxsannahay inaad noo timaadaan oo aad shirkiinii ama shirarkii Soomaali masiirkeedii maslaxada looga hadlayay halkan looga tashado madaxdeena sharafta leh mar kale waxaan leenahay soo dhawaada badana madaxweyne mar kale waxaan ku leenahay hoggaan wacan iyo halganka guuleysta iyo tubtaas ay Soomaali ku socoto maantay oo aan ka mir dhalino oo aad hoggaanka noogu tahay guul baan isku wada rajaynaa reer galmudugna si gaar ah u istaaga go'aankeenuna waa goobaha dagaalka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdikaari iyo qoorqoor kelmadiisaas muhiimka ah markaana waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo ku hadlaya magaca dowlad goboleedyada kulanka ka qayb galay guud ahaan soo dhawow mudane madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية رئيس الوزراء وزارة كحيينك مدحنا دولة حملها كها دولة فدرالك قدوميها قبل كبنادر وفود كانت سعوتي دولة حملها كها دولة فدرالك شعبك أبوانadii halkan gabayada ka tirinayay iyo qof walba waxaan ku salaamayaa maqaamka uu ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan laba mahad celin u sameeyo midda ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u soo bannaan baxay inuu hogaamiyo dagaalka lagula jiro khawaarijta go'aansadayna inuu barta hogaaminta marba ka dhigto meesha uu markaas dagaalka uu ka socdo aanan isleeyahay waa dariiqo wanaagsan iyo hoggaan saxa oo keeni karaya dhiirigelin iyo ku dayasho intaba midda labaadna waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka reer galmudug soo dhoweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee ay nagu soo dhoweeyeen magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta dowladda galmudug oo aan u arkayo xilligii iigu dambeysay iyo maanta farqiga u dhexeeyaay inta uu leegyahay oon leeyahay reer galmudug guul baan idiin rajaynayaa reer dhuusamareebna waad guulaysateen oo intaad hadda haystaan baa idinku sii filan intaa markaan ka baxo waxaa socda dagaal lagula jiro nimankaa khawaarijta markaan dhab u hadlayno dagaalku weli inta uu ka dhabta yahay waa wax aad u yar waxaan odhan karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsiisna waxaa inugu furan teleefoonno
iyo xidhiidho iyo waxaan jirin oo aad mooddo inaynan weli xor ka ahayn waxa aan sheegaynana ayna dhab inaga ahayn. ma haya anigu ammaan badan, waxaan hayaa dhaliil, waayo waddankani isticmaalkii uu gumaysiga markii lagu jiray maanta ayay xaaladdiisu ka xun tahay, kanaana ka isticmaal badan oo ka dhib badan, oo qaacidooyinku isticmaalaya dadka uu isku dirayana ay tii isticmaalka ay ka waxaysan yihiin, oo kaa waaba la garanayo niman caddaana iyo gaalo cadcadow waxay ahaayeen la yaqaanee kuwa jinsigaa oo kale oo dhibaataday ka shaqaynayaan manaxayaala oo haddana magaca diineed wata ayuu yahay maanta dagaalka lala dagaalamayaa. waxaad mooddaa inuu jira gaabis guud oo dadku waxa laga hadlayo iyo ficilku ayna iskeenayn oona islahayn. maanta isma lahayn galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa la eg oo dagaalka shabaab lagula jiraayey intuu jiitamu intaa qaadanaya madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalin walba dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa. waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada istaydee dhimanna hawshooda la gelayaa, waayo markaad aragto waxaa la soo bandhigayo ee isugu faantada ah ee qabaa'ilku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaasoo huba intay soo bandhigta diyaar baan nahay. war diyaartu ma meesha bannaanka la taagan yahayba mise dhaqaaq bay u baahanta? deegaanada hadda labada state ee jubbaland iyo koonfur galbeed waa deegaano qabaa'il hub isugu faanaana ayna jirin, hub waaweyna lasoo bandhigaana ayna jirin, dad hub laga dhigay. laakiin maanta galmudug markaan ka hadlayno hubkii dowladdii kacaanka ay ka tagtee dagaalka sokeeye oo ku bilowday oo maanta yaalla. markaad dib u fiiriso qabaa'ilka iyo waxay soo bandhigayaan iyo waxa laga hadlayo iyo dagaalka leeyahay meelablaha la kor taagan yahay kanaa la kor joogaa midkoodna meesha ma yaallo. arrintaa iyadaa waxaan leeyahay haddii dagaalkaasi sida uu yahay dhab u noqon weydo oo qorigan sumadda leh aad sidan u haystaan, horta qoriga dowlad baa iskale way qaadi doontaa, qabiillo qori ma lahaan doono, dowladnimadaana ka fiican. marka intii aad weligaaba laguu gumaysan lahaa gaarigaaga la qabsada iyo telefoon beena laguu soo sheegi lahaa, waxaan qabaa dadku intay dagaalamaan warheeryadii gumaysiga laga hadlayay 60 tanaa ka adag oo ka dhib badan oo diin taabanaysa oo caqiide ka hadlaysa oo ifsaad caami uu ku jiraa oo wax walboo dhibaatay ay imanaysaa. reer galmudug laydinkuma garaabayo, ciidan intaa la eg baa la keenayaa, waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan, waa la taagtaagan yahay, yaa lagaga tegi iyo sidan hala yeelo maya ma aha. anu dadka arrintaa qaba may idinkumana ammaanayo, waa dhaliil baad leedihiin. waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan aan ka dhabayno oo aan garanno ciidankaas wiilashaas dagaalka ku jiraay waxay u baahan yihiin waa shacabka. sideedamana shacab baa dagaalama. dagaalka hadduuna shacabku ku jirin oo ayna bannaanka soo taagnayna ciidan waxba ma qaban karayo. intifaadada ama kacdoonka shacabka tusaale waxaa idinku filan maxaakimtu mayna ahayn dowlad dagaalamaysay markii hogaamiye kooxeedyada dagaalkoodu socday, kacdoon shacab buu ahaa. haba yaraatee ciidan intuu isu yimid dagaal galay oo cid la dagaalamayay ma jiro. waxay u baahan yihiin maanta nimankaa khawaarijtiihii kacdoon shacab oo la iswada dabagalo oo gabadha buskudka iyo waxaan qirayaa cidda ugu badanee dagaalka ku jirta inay haweenka yihiin. saamaanta iyagaad arkaysaayoo buskudkii samaynayo biyo hagaajinayo meesha furimaha ciidanka wax u taga waa iyaga. odayaasha garhka gudguduudan iyo kuwa bakooradaha wata iyo kulligood iyo kuwa ganacsatada mid waliba wuxuu leeyahay maya aniga waxaanaa la ii geysaniyo hebel baa la soo wacay iyo hantida warheerihiinaa laysku wada dirayaa. maxay canshuurta badana lagaa qaadi kuu taraysaa? maxay 22 isbaara kuu taraysaa? maxay cabsiintu kuu taraysaa?
intaasoo dhan waxba kuuma tarayso. waxaa ii muuqanaysa arrintaani haddii aan u wada istaagno galab iyo subax baan kaga bixi karaynaa soomaaliya oo dhan inaan ku qabanno. goladkay galaanna shacabka qof waliba wuu soo sheegayaa oo qof waliba wuu ka digayaa oo qof waliba meeshay joogaan iyo waxay yihiin buu soo sheegayaa. qolyaha magaalooyinka jooga iyo kuwa qoryaha haya iyo isugu faantada qabaa'ilka ah wallaahi inay isku kindiraan iyo dhibaato inay idiin geystaan mooye wax kalood ka dheefaysaani ma jiro. intaan in leeg madaxweynuhu inuu joogana maba ahaynba. waxay ahayd inuu mar hore ka soo tago, xamar habeen sii joogo, baydhabo tago, kismaayo tago, dagaalkaas 15 beri in lagu soo afjaro. waan rajaynayaa haddana ciidanku wuu dadaalayaa, laakiin moralku waa shacabka. deegaanada la qabanayo iyo kuwa hadda la qabtayna waxaad ogaataan waxa ugu muhiimsan inuu yahay way isku kiindirayaan oo qabaa'ilkay la hadlayaan oo fariq tasud iyo ku samaynayaan qayb iyo xukun. nimankaasi cidna asxaan uma hayaan. aan ka wada shaqayno, inaan ka wada hortagno, waxaan sheegayno in aan ka dhabayno. madaxdana iyadoo dagaalka u soo istaagtayna aan garab istaagno. qabaa'ilkuna waxay isugu faanayaani qabiil waliba intay xoraysiya dagaalkay galaan ha ku faaneen ee qori bannaan lasoo dhigayaan lagu faan. madaxweyne waxaan rajaynayaa in ciidamadana lagu dhiirigeliyo, la garab istaago, lagu dallacsiiyo, ay u noqoto waxa ay ku jiraan waxa ay tahay wacyigelin iyo ku dhex jiridna loo sameeyo. shacabkana waxaan aad ugu muuqanaysa in sida ay yihiin odayaasha iyo ganacsatada iyo kulli intii la kaxeeyo meelaha fariimuhu ku jiraan intay tagaan nin waliba uu ka muuqdo oo nin waliba isagoo meesha jooga miidiyaha uu ka hadlo oo uu hadlo uu sheego mowqifkiisa uu caddeeyo oo dadka moral la geliyo. markaa kuwa bannaanka joogan inta xoolaha la ururiyo magaalooyinka la qabanayana kaalmo bini'aadannimo iyo waxaan bannaan ka barin waxba inooma taraysee ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo danta guud ee dadka intaba aynu ka tashanno oo inna waan isku tashanno oo waxaan geyn karna aan geyno. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa guud ahaan marka laga soo tago iscanaansiga sida wax u socdaan. waxaanan ku dhiiri gelinayaa Axmed Qoorqoor iyo reer Galmudug inay iswada raacaan oo isagoo horgalow ka noqdo oo tuutaha la qaato oo dadka la dhex socda hawsha aan sidaa u gallo. annaguna middaasaan sugaynaa, waana bilaabaynaa. dhinaca iyagana waan ka bilaabaynaa aniga cabdicasiisna oo annaguna ma joogi doonno, laakiin aan isku tashanno. wax walba oon cid kale ka sugno waxba inooma tarayso. ciidan iyo calafeenna waan isku tashanno. aad buuna u fiican yahay xaqiiqatan madaxweynuhu sida uu fakerayo tadxiyada uu samaynayo. adaa billahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabaa inaan mikrofoonka soo dhoweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud si kelmaddii uu u yidhaahdo. isagaa marti looyoo looga fadhiyey. hana la istaago ha la soo dhoweeyey mujaahidka. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة meeshaan wixii laga dhihi lahaa waa laga yiri haddii ay tahay abwaaniintii dhallinyarada ahaa fikirkiinna iyo fasaaxadiinnaba allaha siyaadiyaan leenahaye sida ay u cabbireen nimankaa khawaarijta ah ee dagaalka ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda lidiga ku ahaya sida ay u cabbireen dhaqankooda siduu u xun yahay iyo sida uu u dhib badan yahay sida uu u qalloocan yahay aad iyo aad ayaa waxay u ahaydeen runtii casharro waaweyn oo la barto. waa ku mahadsan yihiin dhammaantood.
intaasoo kale madaxweynayaashii mas-uuliyiinta halkan hootay ka hadashay ayaa iyagana dagaalka iyo wuxuu nagu mudan yahay yaa sheegay. waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego shabaab waxaa la dhihi jiray xaaqinka iyo dhulka, xaaqinkaa dhammaado dhulkuna waa soo haraa. shabaab waa xaaqinkaasiyo shacabkuna waa dhulkii, shacabkaana soo harayo waanay muuqataa inuu soo haray oo maanta alxamdulilah dhul aanan muxuu ahay 15 sano 16 sano lasoo dhaafay aan la marin oo aan nabad lagu marin oo laga leexa jiray oo saacado badan iyo maalmo badan baryo dhan oo maxaa badan loo soco jiray yaa hadda isbedelay. markaan sii soconnana ilaahay idinkiisa waa sii bedeli doonaa. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qof shabaab lagu fiirsanayo oo looga haraayo oo raalli laga yahay inuu shabaab cawo ku sii hoydo dhulkooda ma jirto. waa lagu soo socdaa waana laga saarayaa dalka haddii alla yidhaah. nimankaasi dalka iyo dadka iyo diinta miday u tureen oy wax u reebeen ay wax u dhaqaaleen midna ma jirto, mid ay ka xishoodeenna ma jirto, mid ay u naxariisteenna ma jirto. marka waxa aanay lahayn ayagu annagaa iska leh, diinta annagaa leh, dalka annagaa leh, dadku waa dadkanagi annagaa leh. marka muxuu ahay waa ka ceshanaynaa waxa aan leenahay, iyaguna waxa ay leeyihiin maba laha ee meesha ay aadayaan ayagaa garanay. waxaa soo haray dalka Soomaaliya oo dhan. dalka Soomaaliya dal aad iyo aad u ballaaran waay oo dowlado waaweyn oo caalamka maanta ka jiro ayuu 2 jibbaar ama 3 jibbaar ka badan yahay, 4 jibbaar qaarkood. dalkaasi marka maalin iyo bil iyo 2 iyo sanad iyo si sahlan uma dhammaan karo, laakiin si waqtiga safarka ah ee halganka ah ee aan shabaab ku soo gaabinayno waxay ku xiran tahay hadba inta tabarteenna ah aan gelino. haddii aan tabarteennoo dhan oo midaysan oo dhinac u jeedo oo qalbi iyo qowlba ka midaysan aan u jeesanno waqtigiisu aad iyo aad ayuu u soo koobmayaa sida madaxda iga horreysay ay sheegtay. laakiin xoogaa haddii aan kala daadaadanno oo qaarkeen ay dhegta intay teleefon usoo diraan u sheegaan waryaa waa soo noqonaynaa iska jira, oo qaarkood ay yidhaahdaan wallahi nimankii waa noo jeedaan, oo qaarkood ay yidhaahdaan war hee dhahaya nimankan waa soo sheegnay kelimadan, meelay kugu dhaafayaan ee meelay kugu dhowrayaan midna ma jirto. sooma noqonayaan dadka Soomaaliyeed. waxaan rabnaa ha ogaadeeno sooma noqonayaan. shabaab dagaalaan kula jirnaa. goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa, dhib ma laha. laakiin dagaalka aan kula jirno ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku idhaahdaayey dib loo dhiganayo midna ma ahan. dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa muujiyeen arrintaasi inay dhab ka tahay oo waddadaasi ay haynayaan. sanad ayaa haatan la gaaray intii dagaalkaani uu socday. waxaa la joogaa wakhtigii abaalmarinta oo dadka qaarkiis la abaalmari lahaa oo si maxaanku idhahdaa jamaaci ah oo wadajir ah loo abaalmari lahay oo qof qof loo abaalmari lahay. ilaa iyo hadda inta la soo maray way joogtaa. dadka qaarkiis ee dadka Soomaaliyeed ku qaldamay ama cabsi shabaab ha qalado ama maangaabnaan kale ha u qaldamo ama ulakac ha u qaldamee, ayadana wakhtiga inta la isla xisaabtamo lagu eeday lahay ama lagu ciqaabi lahay ama lagu ceebay lahayna waa la joogaa. ayadana waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadka intiisa badan inay noqdaan kuwa la abaal marinayo la ammaanayo haddii alla yidhaah. ilaahay hadda anugu hadda ma garanayo cid la ceebeeyo ama la cadaabo ama muxuu wax looga dheelo ma garanaye, laakiin dad badan ayaa ii muuqdo xusuusteydu ku soo noqnoqonaya oo mudan in la abaal mariyo, laakiin fursad loo waayey. fursadaheedii qaarna hadda ay joogaan, qaarna ay soo socdaan. kuwa nool iyo kuwa dhintay intaba haddii alla yidhaah. kuwii dhintayna ilaahayay muxuu ahay agtiisa khayr iyo wanaag u jiraa. kuwa noolna sidoo kale ajirkaas iyo xasanaadkaa ilaahay agtiisa waa u jiraa. laakiin waa magacooda ayaan annaguna sheegi doonaayo si ummadda iyo kuwa naga dambeeya iyo kuwa dhalan doona ay ayaguna ugu daysadaan oo dadkaa wanaagsan ee waxa wanaagsan sameeyey ay
daba kacaan oo ugu daysadaan ayaan magacyadooda iyo u sheegaynaa oo aan ugu soo celcelinaynaa waqtigeediina waa la joogaa dadka Soomaaliyeed inta ay soo arkeen kalsooni gelin waa ugu filantaan u maleynaya iyo shabaab inaan laga noqonayn iyo shabaab inaan dib loo waxaynayn iyo shabaab inaan ku soo noqonayn meeshuu ka tagay kuma soo noqonayo ha soo dhuumaalaysto ha soo dhuukaalaysto meesha wadada bambaha geliyo maxaan ku yiraahdaa jaqda hawdka inta galo ciidamada wadada maray dadka wadada maray ka soo xabadeeyo laakiin waa intee waa sacid inta caanihiis ninka isku halaynayo waa ninka shabaab isku sii halaynayo maanta waa tageen dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogan gaar ahaan dhalinyaradu doorkoodii way qaadatay culimada doorkoodii ilaa xaddi waa qaateen abwaaniinta oo rag iyo dumar bala doorkoodii way qaateen siyaasiyiintu waa u taagan yihiin wayna wadaan welina way sii socotaa doorkoodii wuu sii muuqdaa wayna qaateen waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee waxhaysata ee ganacsatada ah ee hantiilayaasha ah doorkiinni weli waa dhiman yahay dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydaan soo arag weli deegaanada 15 sano 16 sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaan waa dadka inta alla wax u dhiiba wax haysto waaye allana waa kula xisaabtamayaa waxaas ay haystaan meeshaas meel ka fiicanood ku bixileed lama jirto reer hebel iyo reer hebelaa isdirirayaba beesaad ku bixidaaye reer hebelkaad dadka soo dila baasada ku sii jirtay qaaraanka ku dhiibi jirtay guubaabada ku bixi jirtay maanta ku bixi inay biyo nadiif cabaan in ilmuhu iskool u helaan in ilmuhu dugsi quraan u helaan in gabdhaha meel ku umulaan ay helaan in caruurta yaryar oo dhalatay meel lagu tallaalo ay helaan intaa ku bixi maanta barnaamijka xasilinta dadka Soomaaliyeed oo dhan u yaala xasilinta iyo adeega dadku ay u baahan yihiin hadba intii la karaa la bixina waxaan la karin la bixin maayo iskuul sar ah oo dabaqyaa ma dhisayno mid cariisha ma dhisi karnaa geed hoostiis ma waabi karnaa ilmaha wax loogu dhigo ba'ta lagu baro ama dugsi quraanka lagu baro oo cadceedana ka ilaaliya xafarka iyo dabeeshana ka ilaaliya maanta meesha ay taagan tahay waa meeshaas dadka Soomaaliyeed dalka iyo dibadda meel kastoo ay joogaan sidaas aan leenahay haddaan u soo noqono waxaan rabaa mar kale inaan ammaano u duceyno bogaadino geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed haddii ay yihiin ciidamada qaranka iyo haddii ay yihiin dadweynaha difaacayaasha bulshada macawisleyda odayaasha akhyaarta ee gartay ee dhalinyaradii ayagoo waayeela inta maxaan ku raada qoragooda deegta saartay raacay culimada daba kacday ee wacdiga iyo waanada ku hayso wiilasha qoryaha sita dhalinyaro intay geed ka booday tala ka boodaha la yiriye inay dadkooda badbaadiyaan inay sharaftooda ilaaliyaan inaanay dhicin inaanay waxin dadka mar kale waxaan rabaa inaan ku soo gunaado ugu celiyo garanwaaga ha la iska ilaaliyo haddii shalay beledka magaalada garanwaaga iska ilaali oo guriga ha ka ijaaranin oo gaariga ha ka ijaaranin oo maxaan ku yidhahdaa hayeeli lalahay maanta dadka Soomaaliyeed ee miyiga ku noolaan leenahay iyo deegaanada bannaanka ah ku nool garanwaaga iska ilaaliya garanwaaga adigu wuxuu kugu soo gelayaa qaraabaysi kugu soo gelayaa qabiilo kugu soo gelayaa qabiilka kii shalay markii dadka la dhibayay lagula dhibayay ee dhibanaaya kugu qabiilaya kii wax dhibayay kugu qabiil ma aha kii shalay ku dhibayay xoolaha kaa gurayay gabdhaha kaa boobayay adiga iyo maxaan ku raad dadnimadaada bahdilayay kaasi kugu qabiil ma aha maanta hadda waa dulnimo meeshii ugu dambeysay inaad halkaas
qabiilnimo intaad ka jirisa aad tiraad waa wiilkeenni waa garanaynaa waa naqaanaa maya kan muxuu ahay waa ka yimide kama imaanina waa lagu soo diray markii ay carareen kuwii madaxda u ahay adigaa lagu soo diray waa lagu soo celiyey aduu kaa shaqaynayaa ciidamada qaranka ka shaqaynayaa kuwa walaalihiisa istaagay inay xumaanta dadka ka bixiyaan rabe macbuusleeda ayuu ka shaqaynayaa aakhirkana intuu bambe idinku tuuro idi qarxiyo cararayaa kuwii ka galbaday ka daba galbanaya ka daba tegaya ha walaashanin hadday dhab ka tahay oo soo noqday ou yimiday dowladda u dhiib waa dhowr marna waa dhawaana ku celcelinaynaa war wiilashu waa wiilasheennii waa nalaga xaday hadday noo soo noqdaan waa wiilasheennii firnacayb uma qabno isirnacayb uma qabno ilaahayaa dadku hadday dembi galaan ay gacmaha kor u taagaan oo ay baryaan ilaaha cafiyey annaga maxaaban inaan cafino maxay culays u tahay waa la cafinayaa laakiin hadde waa inaan hallay cafiyo waa inuu yidhaah oo qaladkii uu dhacay oo ka qoomameeyaa oo maxaanku yidhahdaaye meeshii uu ku galay uu ka tagaa meel kaloo wanaagsan tagaa oo maxaanku yidhahdaaye ou isbeddel muuqda waa inuu ka yimaadaa waa la cafinayaa waa wiilasheennii waxbaan baraynaa xirfadaan baraynaa aalaadka ama tuuliska yacni nolosha ayaan rabnaa inaan gacmaha u gelinno ou noolaado asoo karaamo leh oo waxa uu shaqaystay cunaya oo ku noolaanayo ayaan rabnaa inuu noolaado waalidka iyo walaalka wiilka la jeclaysanayo maalintaasoo wax kuu tarayaa dowladdu dili mayso bahdili mayso dullay mayso nolol qurxoon inuu ku noolaado aayihiis intaa u hartay cimrigiisa ayaan rabnaa intaasaan kala shaqaynaynaa ha qarinin ha la dhuumanin wiilku waa sidaas waa wiilkeennii meel nagama tago waxaan leeyahay wiilasha jira shabaab xaggiisa horena waana ka hadli doonaa marar badan oo soo socda laakiin waxaan leeyahay gabolku yaanu idinkugu dhicin meesha hadduu idinkugu dhacayne waagu yaanu idinkugu baryin ka soo noqda cadowga u soo noqda guryihiinnii u soo noqda dadkiinnii u soo noqda dowladdiinnii meel kuma harin shabaab odayaasha meel kuma harin agtooda odayaasheenna laftooda waxaan leenahay wiilasha dhallinyarada maahane warda aad tihiin khaatumaad joogtiin markaan ka bacdi caafimaad darraa qaarkiin qabaan waxaa u baahan tihiin inaad nasataan waxaa u baahan tihiin inaad maxaanku idhahdaaye fursadda cimrigiinna inta idinkaga hartay inaad cibaadaysataan inaad ilaahay u towbo keentaan inaad dadkiinna cafis weydiisataan yaad mudan tihiin duurka ha ku rafaadina oo ha ku dhimanina adoo sii cararayo sii ordayoon ordi karinna maalin walba yaan muxuu ahaaye wiilal badana waxay u la'anayaan oday waayeelahoon ordi karin oo meesha inuu ka cararo aanan karin oo wiilasha meesha ku haayo wiilasha waxaan leeyahay xiska ha idiin soo noqda odayadana waxaan leenahay adeerayaalow inta idiin dhiman nolol fiican oo suuban iyo cibaadada alle iyo alla kacabsiga iyo karaamada iyo ciziga bini aadamku uu leeyahay ilaahay uu siiyey adikoo ilaalinayo noloshiinna inta dhiman cibaadadaas ku dhammaysta iyo deganaanshiyo carar iyo duur ha ku dhammaysanina dalka soomaaliya guud ahaan xaaladdiisu aaday u wanaagsan tahay cadowgaa waa ka baxayaa dowladdii way dhismaysaa xukunkii waa sii degaandegayaa dowlad goboleeduu jooga waa ka dega degmooyinkuu tegayaa tuulooyinkuu tegayaa haddii alla yidhaahdo arrintii xasilinta waa socotaa dadka meel kastoo joogaan dadka soomaalida intay dowladdu karto in la gaarsiiyo waxbarasho caafimaad biyo maxaanku idhahda adeegyada kaloo amniga leh garsoorki leh maxaanku idhahdaye in ay dowladdu heerarka kale guduunaddu ayagoo iskaashanaya in dadka soomaaliyeed loo geeyo talada loo dhoweeyo dadka soomaaliyeed oo meesha ay joogaan ay ku taliyaan horeyaan u ballan qaadnay waa naga dhab dadka soomaaliyeed qof aanay ayagu dooranoy tala u dhiiban loogu dhiibi maayo lagu jajuubi maayo
loo soo diri maayo kay ayagu taladaana loogu dhiibaan la yiraa ay yidhaahdaan yaa talada loogu dhiibayaa oo u haynayo bas dulqaadkeeda ha yeeshaan fursaddeedana ha bixiyaan meeshii wiilkooda fiican iyo gabadhooda fiican ay talada ugu dhiiban lahaayeen goobtaas sidii loo tegi lahay goobtaas maxaa naga xigo shabaabaa naga xigon dalka ka saaro shabaabaa naga xigo tuulada qurac dheere iyo garasweyne iyo maxaan ku idhahdaa banaankii muxuu hebelow in sanduuq inta la dhigo qof walba codkiisa ku rito yidhaa aniga caliyaan rabaa aniga caashaan rabaa oo ka yidhaahdo yaan soo socoto aan dheeraynoon hiigsanayna haddii alla yidhaah waxaan leeyahay aan u gacmo bannaysanno in aan shabaab meel iska saarno abwaankii heestii ahayday maalmihii wacnaa way soo socdaan aad iyo aadaa u mahadsantihiin waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha iyo dowladda galmudug martigelintii soo dhoweyntii heegankii ballaarnaay oo ay ku jireen iyo taakuladii gabdhaha reer galmudug weliba taakuladii ay ka dabageeyeen muxuu ahay wiilasha ciidanka ah ee frontiga jiro aad iyo aad ayaan waana uga mahad celinaya waana ku ammaanaya waa ku bogaadinaya sida gabdhaha kale ee soomaaliyeed haddaatay madaxweyne axmeda ka hadlay gabdhaha soomaaliyeed maanta cidda la hubo oo la arkay oo muuqata inay dagaalka u taagan tahay qaybaha bulshada marka la fiiriyo waa iyaga kuwa xamar joogahayna 24 saac waa ka soo daba dhiibayaan muxuu ahay raashinkaas qallalan oo ciidanku intay socdaan oo aanay dab shidan karin ay ku sii noolaadaan ay ku isticmaalaan aad iyo aad ayay maxaan ku idhahda ugu ammaanan yihiin waana ku ammaanaynaa meel kastoo ay joogaan gabdhaha soomaaliyeed kartidooda iyo kaalinta iyo dareenka mana aha wax maanta ay bilaabeen taariikhiyanay sida soo ahayeen gabdhaheennu gobsana hablaha iyagu waaye aad iyo aad aad u mahadsantihiin ballanteennu waa goobaha dagaalka waa wiilasha dagaalka jiroon u tagno meesha ay joogaan ugu tagno maxaan ku idhahdaa bacaadka la soo seexanno waxa ay cunayaan aan la soo cunno oo aan halkaa ugu tagno waayo waana u sii soconnaa waa u tegaynaa haddii alla yidhaah aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu